Ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay magaalada Doobley ee gobolka Jubbada Hoose kaga soo qabteen askari ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya kaas oo la sheegay inuu qof shacab ah ku dilay qof kalena dhaawacay. Saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland ayaa sheegay in howlgal ay ka sameeyeen degmada Doobley ay u suurtagashay ciidamada inay soo qabtaan askarigan oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 43aad. Waxa uu sheegay in askarigan gacan ku dhiglaha ah ay ku wareejin doonaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka Jubbaland si cadaalad loo marsiiyo. Sidoo kalena uu sheegay in dhawaan loo duulin doono magaalada Kismaayo. Howlgalka lagu soo qabtay askariga la sheegay inuu dilka geystay ayaa waxaa ku dhaawacmay 2 askari oo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo askari gacan ku dhigla ah kadib markii ay rasaas isweydaarsadeen. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhowr jeer oo hore waxa ay xukuno dil ah ku fulisay ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka Jubbaland kuwaas oo lagu helay inay dileen dad askar ah iyo sidoo kale dad shacab ah.